وحساكس رسمي هلوغو سو دhoweeyay gudaha magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan loo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo shacabka mushxarada durmaanka gaadiidka oo intaba ay ahaayeen kuwa marba marka ka dambeeyay isa sii tarayay iyadoo loo kala hadhin yariyo weyn soo dhaweynta xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh oo isagoo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna xildhibaanka ugu daada yar leh golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan la ayaa markii dambe loo galbiyay markii gudaha magaalada soo galay fakaaraha khayriyada magaaladani Boorama halkaas oo khudbad kala gadisan ka jeediyay isagoo sidoo kale ku soo hadlay magaalooyinka Dila iyo Gooryacawl soo dhaweyntan oo ahayd tuaan abid ka dhicin gudaha magaaladani Boorama tan iyo 1991 markii Jamhuuriyadda Soomaaliland noqotay mid gooni isku taagta xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa noqday mid la dhaca soo dhaweynta heerka sare ee saaka loogu sameeyay gudaha magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal إيمانك وسيء إسلام لماذا كنت شيء كنت من دون إنك تجرب محبة لا هذا نسبر إلى عبديسة هي تقوى ديسة هي النبي ديسة محمد محمد وحتى بين قلبك ما قياسي كرا يوم ما تشعر فريدو براي تاي وأكون هسن بيجي وأنا أسدي هنا تاكو جنبان عدد تاكنيين أنت يسلو وعن خلاسين كوكو دمكر لي إله رب العالمين أباركات يقول هذه هيدي الله يدير بركة يعمرك يعرضك يعزك يعافك هاي لا هنا مكان قبوحي أبارك بكي يقول لي يفضلك يا إله ويقبلك طلباتنا waxaan ku tartaaray ummad xaqiiqadii la yaqaano oo ka tirsan waxyaabo badan baynu ummad ay taris la tahay nabadgelyadu baynu ummad cilmigu taris la yahay baynu ummad caqliga ilaahay hibow siiyay baynu intaas oo dhan aynu credit ku leedahay lumin mayno ilaahay idin taladeennuna habaari mayso waxaad noqotaanna waanu fulinaynaa siyaasadana inaad nagu ixtiraamtaan والسلام عليكم ورحمة الله جامع حسين جامع Somaliland Space Channel خيرية مقالة Boorama